kulanti wanaagsan daawadayaal waa mar kale barnaamijkeena Dhulmar ee Horfadhi Media barnaamijka Dhulmar maanta waxa marti inoogu ah gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya mudane Maxamed Xasan Ciro dhawaan wuxuu soo bandhigay buug ka hadlaya gabi ahaan iyo guud ahaanba macluumaad badan oo ku saabsanaa sida ay doorashadii dadbaneed ee dalka ay u noqotay gaar ahaan intii isagu uu hayay muddadii hore ee la daadinayay doorashooyinka mudane Ciro waa qoraa sidoo kale isla markaana wuxuu aad macluumaad badan uga sameeyay sheekooyin dhaqan taariikh iyo sidoo kale tan maanta siyaasadda dhex taaganahay marka horeysa waan kaga mahad celinayaa kulankaaga iyo sidoo kale waqtigaaga aad noo hortay mudane soo dhawow magacaygu xaashi barnaamijka Dhulmar ku soo dhawow waa mahadsantahay xaashi adiga iyo daawadayaashaba waa idin salaamaya waana ku mahad celinayaa aad mahadsantahay mawduuc inta badan waxa aan maanta rabaa inaan ku qaada dhigno buuggan garsoore garoon aan sharci ka jirin laakiin dabcan intaan gelin barnaamijkaas waxaan rabaa xogaa oday xogaale oo wadanka Soomaaliyeed sida wax uga socdaan og ayaa tahay 2 sanadood ayaa hadda dhamaatay sanadka saddexaad ee dawladnimadii aad ka shaqeynaysay ayaa bilaabatay sidee ayay kula muuqdaan adoo dabcan xooga saaraya bal khibradda aad u leedahay arrimaha doorashooyinka iyo diyaar garow la'aanta hadda muuqata ilaa hadda salaam waa mahadsantahay mar kale su'aashu waxay tahay marka la qiimeynayo ama la doonayo in la qiimeeyo xaalad waxa asaaska u ahi waa hanaanka maamulka markaas jooga oo u shaqeynayo taasoo abuurta fahamka guud ee dalka ka jira waan ku soo koobayaa jawaabta su'aashaada 2 sano iyo bilo kadib waxaan taaganahay dastuur lagu muransan yahay guddi doorasho oo aan jirin hanaan sharci doorasho oo aan cadayn hubanti la'aan kale oo badan oo xitaa maamulada ka jirta oo waqtigoodii uu dhamaaday oo aysan iyaga laftigoodu cadayn meesha ay aadi doonaan iyo sida ay wax u waxayn doonaan marka waxaad moodaa horta wax badan baa isku huursan laakiin waqti aan fogeyn duruufaha ayaad moodaysaa qaarkood inay kala cadayn doonaan laakiin waxaa jira kuwa aan duruufuhu sugi karin oo ah arinta dawladda dhexe haddii aysan muuqan xaalad wada hadal oo dhex marta dhinacyadii dhismaha dawladda ku wada jiray oo isku dhan waxa ay aakhirka ku biyo shuban doontaa in dhexdhexaadin kale intaa la helo ay hawshu Soomaalida aysan keli ku noqon intaasan kusoo koobi lahaa waa tahay mawduucaas waa ka tegi doonaa bardhow waxaanu geli doonaa sheekooyinka buuggan oo xambaarsan yahay iyo macluumaadka laakiin waxaa tiri 2 sanadood sanadka saddexaad ee madaxweynaha la galay waxaana tii dastuurkii waa lagu muransan yahay guddi doorashana ma jiro heshiis doorashana ma jiro marka si guud maadaama aad u taqaanid mawduucan xilligan oo kale dawladdii tan ka horeysay oo kale ma jiray heshiis doorasho xilligan oo kale dawladdii hore waxay mar hore ka shaqaysay wax la yiraahdo heshiiska doorashada qof iyo cod oo ay baarlamaanku meel mariyeen oo shuruucdeedii la dejiyay waxaa dhisnaa guddigii qaran ee doorashada oo ay Xalimo Yaray gudoomiye u ahayd oo beesha caalamkuna ay la waafaqsanayd dadka Soomaaliyeedna ay raali ka wada ahaayeen waliba beesha caalamkuna ay dhaqaale badan ku taageertay guddigaas iyo dhismihiisa iyo shuruucdiisii iyo hanaankiisii marka wax badan baa abaabula markii ugu dambeeyay saacadii ugu dambeeyay bay bahashu kala wareegtay oo doorashadii qof iyo codka ahayd ay maamuladu diideen laakiin hadda ma aqaan madaxweyne Xasan inuu isleeyahay tii horeba waa la diiday iska sug in inta la isaga imaanayo oo dood laga wada yeelanayo inuu saa u fikerayana dadka qaar baa qaba in uu isleeyahay sug inta xaaladdu ay ka soo gaarayso qirqirsiga kadibna wixii markaa lagu heshiiyo oo waqti qaadanaya oo taasna ay ka dhadhamayso muddo kororsi aan cayinayn
oo duruuftu jiido dadka qaar baa laftigoodu taas u daniyaya macnaha inuu gaarsiiyo meel lagu khasbanaado in lagu khasbaan in la sugo oo wada hadaladuna ay ku dheeraadaan caqabada ay noqdaan kadib sanad labo wax la mid ah ay duruuftu marka ay keento laakiin xasan wuxuu yimi xilli muhiim ahaa oo wadankuna muhiim u ahaa doorashada qof iyo codna haddii uu ajanda qaran ka dhigan lahaa bilowgii ugu horreeyey doorashada oo uu muddo xileedkiisaba la bilaabi lahaa maanta meel fiican bay xaaladdu mari lahayd anigu san aaminsanahay waayo wuxuu haystaa ra-iisul wasaare la shaqaynaya gudoomiye baarlamaan la shaqaynaya dowlad ishaysatuu haystaa oo aan kala shaqaynayn oo dowladda kala shaqaynaysa laakiin maamul goboleedadii bay markiiba kala boodeen qaarkood puntland ha ugu weynaato soo taasoo cilad bay noqon horta mar walba maamul goboleedyadu muhiim bay u yihiin doorashada xilliga doorashada soo dhawaato hanaanka siyaasadda soomaalida maamul goboleedka muhiim noqda dowladda dhexe waxay noqotaa cajil laga tegay waxba macna kuma fadhido because waxaa loo daba fadhiisanayaa awoodihii madaxdii maamul goboleed maadaama iyagu fulintii haystaa deegaanadii fulintii jireen deegaanadii aanay xukumin dowladda dhexe waxba gacan kuma jiraan marka waxa waana sababta de hadda la oran karo xasan laftiisu uu uga warwareegaya inuu guddi dhiso iyo inuu hanaanka doorashada uu ku dhiirado hal duruuf oo adagna way jirtaa oo xasan laftiisa ku meegaaran aniguna aan qabo taasoo ah horta doorashadiisaba mas-uulka wax sameynaya kalsoonida ay dadku ku qabaan ayaa kow ka ah xasan sheekh marka waxaa moodaa xoogaa inuu kalsoonidii dadka lumiyey oo dee marka arrimaha musuqan iyo dhulalkan iyo dadku say iyo xaaladda ku weegaarsan marka dhinaca la fiiriyo way adag tahay inuu yiraahdo anigu guddi baan soo dhisaya oo dowladdiisa guddigay soo dhisto la yiraahdo ha la aqbalo halagu dabatikado oo halagu dabatikado because iyo guddigaasi say awood ugu yeelan karayaan inay ama Kismaayo tagaan oo Baydhabo tagaan oo Garow tagaan oo Dhuusamareeb tagaan oo ay doorasho ka qabtaan marka waxaas oo dhan ba su'aalo isaga ku soo wada noqonaya weeye laakiin waxaan kugu soo gabagabayn lahaa madaxweynuhu fursad buu lumiyay dahabiya oo 2 sano iyo xogaagii uu jiray uu ku qaban kari lahaa hadda wixii ka dambeeyana waa qarqarsi iyo wixii madali ku heshiiso in la fuliyo bay noqon doontaa waa mahadsantahay aad mahadsantahay mawduucaas dabcan nuxda mawduuca iyo nuxurkiisa ugu weyn waa buugan hadari hor yaala runtii buugan laba qaybood ka koobay qaybta koobaad afka hooyo ku bilaabanaya Soomaaliga kadibna intii uu Soomaaliga oo tarjumaan ba qaybaha dambe loogu tagaya waana isku nuxuroon magaciisa waxaad bixisay garsoore garoon aan sharci ka jirin maxaad u qortay buugan horta waa su'aal horta aad u qiimo badan qofku marka uu horta wax qorayo ujeedo iyo nuxur ka dambeeya qoraalka ayaa jira aniga maalintii aan guddoonka noqday waxaan qabtay guddi doorasho oo aan xafiis lahayn oo aan miisaaniyad lahayn oo aan waxba u diyaarsanayn haddana waa hay-addii ugu sarreysay waddanka waqtigaas lagu jiro wixii ugu horreeyay ee aan raadiyey saacaddaas wuxuu ahaa bal doorashooyinkii waddanka ka soo dhacay maxaa laga qoray doorashooyinkii waddanka ka soo dhacay maxaa laga qoray marjac yani marjac anigu dadka qalinka Soomaalida iyo qoraalkooda aad ugu dhundaloolay baan ahaa kuna lugta lahaa meelaha dhigaalka Soomaalida laga helo intooda badan xiriir baan la leeyahay waana isu furayn xog baan raadiyay iyo buug saad ogtahay Soomaalidu doorasho ama doorasho asal ah oo ay galaan waxa ugu horeysay oo ay sanduuq cod ku ridaan 54 oo waqtiga Talyaanigu xukumayay waddanka waxaana la soo saariyay dadkii baarlamaanka noqon lahaa 70 xubnood bay ahaayeen oo sidii baarlamaan oo kala ah noqonaya oo 60 baa Soomaali ahaa 4 Talyaani bay ahaayeen 4 Carab bay ahaayeen mid Pakistani buu ahaa midna Hindi buu ahaa xogtan mar dambaan soo helay aan ku sheegay yani doorashadii waqtiga laga soo bilowday
ilaa maanta oo aynu joogno oo 70 sano ku dhow aynu qaran nahay in doorashooyinka oo ah xaaladda inoogu muhiimsan ee aynu waddan ku dhisano dadkii soo hogaamiyey ama ka soo shaqeeyay aysan waxba ka qorin waa dhibaato so marka qofka in la helo xaalad ama qofka doorasho maamulaya inuu helo bal wuxuun doorashooyinka hore laga yiri fikirkayga koobaad ayuu ahaa maalintan guddoonka imina waxyaabihii aan niyeystay bay koob ka ahaayeen inaan markaan meesha ka waxaan dhammaato aan wax ka qoro xusuus qor baanan samaysanayay maalin walba notebookaygu gacantayda kama bixin 3 notebook baa ii buuxsamay wixii intii un baan marka wixii sheekooyin noqon karayay aan islaha Soomaalida macnay u sameynayaan ama taariikhdii galayaan ayaan ururiyay marka ujeedka ugu muhiimsan aan ka lahaa waa in la helo war doorashooyinka Soomaaliya maxaa laga qoray bal inay faaruqnimada meeshaas inaga haysata bal inaan dabooli karo wuxuun kamid ah aad baa mahadsantahay si fiican baad arrintaa u dhigtay waxaad ugu tala gashay tixraac inay u noqdo buugani hadduusan noqonayn kii ugu horreeyay markaa dee maadaama aad adigu weyday isku dayday ka hor in la helo inuu noqdo waaya macluumaadka buuggan ku qoran intooda badan waa xog aad ka bixisay doorashooyinkii ka dhacay dalka qaar kiisaska qaarna waa iska hortaagtay kuwo kalena dee si guud ayaad uga hadashay marka hadba la kala dhigdhigo oo si weyn loo fiiriyo doorashadii adigu aad qabanqaabaysay dabcan aad ka ahayd guddoomiyaha markaynu soo koobno caqabadihii ugu waaweynaa ee doorashadaasi in adigu guddoomiyahan aad guulaysato ama sidii adigu aad jeclaad aad niyad wanaag ahaan aad wax u qabato shakhsi maamul iyo deegaan midnaba adoona ka tegaynin hadday xitaa ku jiraan kuwii dowladda madaxda ka ahaa bal kusoo dhawow arrinta Salman waa mahadsantahay mar kale horta intaan taa ku gelin su'aashaas wax yar baan kaaga sii horeysiinayaa buuggan inaan ururiyo macluumaadka doorashada waxaan ka horreysiyay summary ama Google Dig aan ku qeexay doorashooyinkii waddanka ka soo dhacay oo dhan oo ilaa dhowr page hore ah waxaan raadiyay dadyowgii ku lugta lahaa doorashooyinkii ama ku soo baxay ama wuxuun xogogaala ka aha uu ahaa 54 dabcan waan waayay dadkii ka soo baxay waqti hore ahayd 56 laftigeeda 59 yani laakiin waxaan helay hal nin ah oo kamid ah baarlamaankii 64 soo galay oo nin oday ah oo hadda waa yeelay 90 kan kor u dhaafay waxaan ninkaasan ka helay baarlamaankii 64 wadan xog badan buu siiyay baarlamaanadii kale kuwii 68 dad baan ka helay kuwii kale intii burburka dawladuhu dhiseen dad baan ka helay yani horta halkaasan xogo badan ka raadiyay summary marka ku helay ama Google Digga hore aan doorashooyinka u sameeyay saasay ahayd waxaan saas u yeelayeen waxay ahayd bal ugu yaraan dadku inay fikrada ka qaataan doorashadu say u dhacday noocay ahayd haday local dawladaha hoose ahayd haday baarlamaan ahayd haday madaxweyne ahayd saasan u qorayay caqabadihii ay lahaydna waan qorayay doorashadaasi sharcigeedu saas u ahaa laakiin saasa loo bedelay bedelkii la keenayna dhibkaas u keenay yani doorasho walbana wax yar oo qeexitaan ka bixinay yani waana xogo muhiima una muhiima taariikhdeena dawlad dhiskeena iyo doorashooyinkeena haddaan marka usoo noqdo su-aashii aad weydiisay doorasho dadban bay ahayd caqabaduhu way badnaayeen oo de 1 iyo 2 lama dhihi karo de buuggan waxaan ku ururiyayba waxa ugu waaweynaa waa caqabadihii gudiyada ay la kulmayeen caqabadaha ugu waaweyna Soomaaliya haddaan ku soo koobo ee doorashada haystay waxaa jiray ku dhaqan la'aan sharciga مثلا heshiis doorasho la gaaray oo 17 September ah oo madashii ay isla gaareen madashu waa iga raaliha madashu waa maamul goboleedyada iyo
xafiiskii ra'iisul wasaaraha ama dowladda federaalka iyo maamulkii gobolka banaadir intaasaa waxay isku tahay madasha wada tashiga qaran madal loo baahan yahay bay ahayd wixii marka iyagu ay ku heshiiyeen in la fuliyo baa horta caqabada ugu badan ay ka dhalanaysay caqabadaha kale jiray waxay ahayd sabay ku dhalanay mar hadda iyagu ku heshiiyay ahaayeen idinkana idigu ka hesheen inaad ku hogaamisaan ma isla iyagiiba haddana ku noqonayay dhibaato ku noqonayay mise cid kaloo saddexaad arrintaasina cadaysan halka dhibay jiraa waxay tahay waxaa laga yaabaa madashu markay heshiis gaadho heshiiska ay gaadhaan inay miiska uga kacaan kulankooda kalena isla heshiiska ay horey u gaadheen ubay haddana gaadhayaan haddana waa laga tegay yani marka dadka heshiiska gaadhaya ayaan heshiisyada ay gaadhayaan aan fulinayn waad fahmaysaa soo maha marka isla iyagiiba caqabad iyagii unba caqabad ku hay yani wixii ninkii waxa mas-uulka ka ahaa waa ruqo ninkii lahaa dabada hayo ma kacdo dadka Soomaalida ay waa dad fiican xaqiiqiyan marka run la sheego waxay aamineen dadka hogaankooda ah wixii ay u go'aamiyaan oo sax iyo khaladana way iska qaataan way isaga qancaan bal waxa aynu horey u socono oo niyad abaa la gashada dadka Soomaalidu niyad samida ay qabaan ayaa haddana mararka qaarkood lagu kor socdaa madashu intii doorashadu socotay oo ahayd 2 sano laga soo bilaabo 2020kii bishii September 17keedii baa heshiiska la saxeexay heshiiskii doorashada dadban waxayna soo gabagabowday maalintii madaxweynaha la doortay goormahay 15kii bishii May waa 2 sano iyo 3 bilood bay ku dhowdahay 2 sano iyo dabcan charter adu 2 sano wax yar dhiman bay ku dhowdahay because September 17 baa September 17 hadii laga tago waliba ki June 2018 baydhabo wada hadalladaasi wax hore ahayd laakiin maanta heshiiska la gaaray adigu 2 sano wax yar dhiman 3 bilood dhiman doorasho dadban oo xulis ah oo dad koobani ay wax dooranayaan oo waliba gacanta ay ugu jirto maamul goboleedka iyo qofka iska haysta ama madaxda ka ah awoodu oo uu qofka soo xulayo oo uu yaqaan qofka xildhibaan noqonaya in ay noqoto wax ka badan 20 bilood ay qaadato yani waa dareemi karaysaa caqabad ka weyni ma jirto waxaana halka ka garan kartaa khatarta wadanka la geliyay iyo dadka Soomaalida intay la egtahay ama ay qaran la egtahay marka buugga inta badan waxaan kaga hadlaynaa intaas ma intaanan soo khatar labaad oo runtii waa si guud baad u qeexday in khatarta ugu badan caqabada ugu badan ay ahayd isla dadkii go'aanka gacanta ku hayay masiirka ahaa adoona kala saarinba laakiin hadhow kiskis weyn eegi doonaa laakiin si kale inta khatar labaad oo kala jirtay oo faragelin shisheeyo aad loo tabinayay gaar ahaan warbaahinada qaarkood ay ku dhiiranayeen laaxid taa waan soo noqon doonaa laakiin waxaa jirtay waraysi uu marbixiyay gudoomiyihii baarlamaanka ee Soomaaliya isla doorashadu ka hadlayay Maxamed Mursal marka isaga hadalkaagaas hadalkiisa dhageysatay waxa ku jirtay in dadka meesha jooga wuxuu ku waafaqsan yahay dadka meesha madasha ahaa iyo maamul goboleedadu inay diidanayeen doorashada oo doorashada socota oo ma aaminsantay inay xaqiiqda jirta tahay dadku oo dhan way arkayeen markaan ku leeyahay 17 September heshiiska markii la gaaray waxa la sameeyay habraac baa la raaciyay habraacaasi wuxuu sheegayaa waqtiga gudiyada la dhisayo waqtiga doorashadu bilaabmayso ilaa xitaa waqtiga madaxweynaha la dooranayo gudiyadii waqtigii la magacaabay maamul goboleedyada soo magacaabin iska badaadee ajandayaashii gudiyadii markii qayb ay soo magacaabeen muran baa la bilaabay oo la isku qabsaday oo gudiyadii laftigoodii baa la eedeeyay oo la yiri qaarkood nabad sugid iyo wax la mid ah bay ka yimaadeen taasoo aan ahayn wax asal ah waayo meeshan qof Soomaaliyeed baa yimi waana gudi siyaasaduna waxayba ku xiran tahay dadka ka koreeya gudiga ee gudigan maba ku xirnaba sidaad ogtahayna Salman doorashada dan 2016 baa la galay waxaa jira khaladaad waaweyn oo 2016 dhacay 2016 doorashadii dhacday laakiin dadku maysan fahansanayn doorashada dan waxay ahayd soo marka tababar fiican oo waqtiga la qaatay bay tani timi
qof waliba markaa isagoo ka khibrad qaadanaya wixii horey u dhacay ayay waxay noqotay in awoodii iyo culayskii iyo wixii khalad ee xitaa horey u dhacay ay doorashadan dambe ay soo fuulaan marka arrinta hadda aad marka ay weydiinaysaa arrin ma jirtaa iyo waa jirtaa ay tahay maanta way jirtaa dee dadka dhanna way u muuqatay weliba de aan ku qeexo labada maamul goboleed ee Jubbaland iyo Puntland anigu aan ka soo jeedo ayaa ahaa caqabada ugu weyn dhinaca marka maamul goboleedyada laga hadlayo marka laga hadlayo because guddigii waqtigii lagu ballamay may soo magacaabin inta badanna jiitanka doorashadu iyagu ka imaanayay maamul goboleedyada kale kama imaanayn xitaa markii dambe la heshiiyo marka heshiis la galaba way baxayeen ilaa 2 bilood bay maqnaanayeen 2 bilood kadib dibadda bay u baxayeen wadamo dibadda way laakiin marka arrin dhinaca guddiga lagu eedeynayay especially adigu inta adigu de marka hore guddiga xubnaha uun magacaabay waad ka mid inta gudoomiyaha noqon arrinta xubnanaba sugidda taana waxa lagu eedeynayay dawladda talada haysay marka qolyahan la arkayay iyaguna inay dabada jiidayaan doorashada dhinaca dawladana waa lagu eedeynayay iyaguna inay qaseen oo guddiyadii ay isdhex galiyeen oo dad shaqaalaha raydka iyo ay ku dareen taas mise ku muuqanayeen markii watiirka la sifeeyay horta wixii cabasho ka yimi guddiga la aqbalba oo hadda de wax su'aalaha ka taagan wixii marka hadii intii cabasho ka timi la aqbalay oo la xaliyay de hadda wax su'aasheeda dib looga keeno ma ba jirta marka waxay misantay wixii dawladda dhex wixii ku saabsanaa waa la xaliyay waxay soo wixii lagu qabsaday la xaliba laga gudub laakiin doorashada waxaa la xaliyay guddiyada May mise June 19 waa guddiga cusub dib loogu dhawaaqay waa almost 9 bilood kadib 9 bilood kadib heshiiskii oo dee duruufo badan la soo maray maalintaas dib loo shaandheeyay de waxay ahayd in doorashadu ay smooth ku socoto oo wax 2 bilood 3 bilood ka yar ay ku dhamaato laakiin haddana Juntaas guddiga dib loo waxay maydeedii kale dhamaata 12 bilood oo kale 12 bilood oo kale qaadat waa tahay marka laga yimaado caqabadan hogaamiyaashii isla ayagii dumanayay arrintan ay rabeen inay daangeystaan laakiin waxaa jirta warar kale oo aad u badan oo sheegay in faragelin shisheeye doorashooyinka ku socotay aduna qofka dib u xogaalsanayaa arrinta ogaa karay ma jirtaa in doorashooyinkaas kaliya Soomaalida la soo dhaxmarayay Soomaalida kaliya aysan hayna Soomaalida hogaamiyaasha la soo dhaxmarayay laakiin ay quwado shisheeye iyo danaan shisheeye ku dhex jireen horta doorashada mise de siyaasadda guud ee wadanka kala labo point waa kala labo anagu doorashadan doorashada aan hagaynayna waxaan inta badan xooga saaraynay in dadka aan la shaqeynayno ee madasha ah iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha bal ugu yaraan aan isla soconno laakiin de siyaasadda kale ee guud ee wadanka ahi faragelin ay kama marnayn oo dadka dhan way u wada jeedeen in doorashadu dib u dhacdana waa asal marka la fiiriyo waa wax ku imaanayay siyaasadahaas faragelinta ah ee ka imaanayay meelaha kale rasmiyan haddii ra'yi ahaan laakiin arrimahan de waxay u baahan yihiin madaxdii doorashada dib u dhigaysay laftigooda su'aalahan la weydiiyo intan heshiis bad gasheen way kan iyo kan way anigu qoraalkayga doodihii aan madasha la geliyay qaybtood baan ku qoray waxyaabaha iga soo baxayay iyo faalayn baan ku qoray waxyaabahaas oo dhan waxaa laga dhadhansan karayay mararka qaarkood inaad is oranaysaba madasha dadka ku jiraahi inaysan diyaar buu ahayn xitaa wadankani inuu ama doorasho ka dhacdo laakiin buugaaga waad ku xustay in doorashada faragelin shisheeye loo tuhunsanaa oo tusaale ahaan mas-uuliyiinta qaarkood ay qirteen ilaa xad in cadaadis iyo ay jiraan ama guddiyada qaarkood ay soo sheegayeen oo dhahayeen cadaadisyo shisheeyaa jira